وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله تبارك وتعالى أوقاتكن في كل خير. إلهي سبحانه وتعالى أيين مهدننا إلهي سوكا كاني مجلس كان قيمها بدن oo aynu isugu sheegayno wixii aynu isku dhaanno oo aynu isku xasuusinayno ilaahay subxaanahu wa tacaala diintan uu inoo soo dejiyey oo hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo hadalka nebigaba aynu ku akhriyayno. waxaan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala imaatinkeennan iyo fadhiga aynu fadhinno intaba ilaahay inuu inoogu dambi dhaafo, camalkeenna allah subxaanahu wa tacaala ikhlaas aynooga dhigo. sidaa uu walaalkeen sheegay, mowduuca aynu ugu talagalnay waxa weeye inaynu su'aal isweydiinno. su-aashaasi oo ku aadan hablaha muslimaadka ah: hal anti muslimatun xaqa? walaashayda muslimadda ahay, miyaa tahay gabadh muslimada xaqiiqa ahaan? si aynu taa u fahanno waxaa loo baahan yahay bal inaynu isdul taagna. marka koobaad, islaam waa maxay? maa huwa alislaam? walaalayaal, islaamku waxa weeyaan alistislaamu lilaah walinqiyaadu lahu biaaca. in ilaahay la ysku dhiibo oo loo hoggaansamo oo taacada ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu hoggaansamo, kaasaa islaam la yidhaahdaa. waana diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay, waana diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuullada oo dhanba uu la soo diri jiray. waa diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala berri toole qofka kayrkeed ula yimaada isagoo diin kala wata ilaahay ula yimaada ilaahay aanu ka aqbalayn. waa diinta ilaahay uu yidhi inna addiina cinda allaahi alislaam. diinta xaqa ah ee ilaahay dadka uu jannada ku geeyo, naartana uu kaga badbaadiyo markay la yimaadaan ee ay qaataan, waa alislaam buu allah yidhi subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu yidhi waman yabtaqi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi alaakhirati min alkhaasiriin. qofka islaamka kayrkii diin ka dhigta oo diin ka yeesha laga aqbali maayo baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. aakhirana kuwa khasaaray buu ku biirayaa oo uu ka mid yahay. waa diinta ambiyadii ilaahay uu doortay subxaanahu wa tacaala markay sii dhimanayeen ay ubadkooga ugu dardaarmayeen. nebi ibraahim calayhi salaam ayaa ilaahay inooga warramay inuu ku yidhi ilaahay jalla jalaaluhu islaam oo isdhiib oo ilaahay isku dhiib subxaanahu wa tacaala. ilaahay baa wuxuu yidhi jalla jalaaluh: id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin. waxaad nebi muxamedow xustaa sala allahu calayh wasalam markii ilaahay nebi ibraahim uu ku yidhi islaam oo isdhiib oo ilaahay isku dhiib subxaanahu wa tacaala, nebi ibraahimna uu yidhi aslamtu lilaahi rabbi alcaalamiin. waxaan u hoggaansamay ilaahay jalla jalaaluh, ilaaha uunka oo dhanba rabbigiisaan u hoggaansamay. wuxuu ilaahay inooga warramay subxaanahu wa tacaala inuu taa ugu dardaarmay carruurtiisii. ilaahay jalla jalaaluhu wuxuu yidhi: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحو قدر دارمي نبي إبراهيم عليه السلام يا نبي يعقوب وحو قدر دار من عرور تودي يقع كله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. أبد كيديو عرور تيديو إنما تيديو إلهي الدين تأيو إذين دورته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذنكم مسلمين مويانه هدي مننا بقى يقدر دارمين. ودين تا إلهي سبحانه وتعالى إنه غور رمي أنبيادي إلهي ودورته مركي جيريون ريان
inay ilaahay weydiisanayaan subxaanahu wa tacaala inuu dilo iyaga oo muslimiina. nebi yuusuf calayhi salaam adduunyada ilaahay markuu maqaam sare ka gaarsiiyey, diintana ilaahay nebi ka dhigay oo cilmigiisana ilaahay uu baray wax badan oo ka mid ah, ayaa maalintuu geeriyoonayay iyo markii wax walba u dhammaystirmeen rabbi buu baryo wuxuu yidhi rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiili alaxaadiisi faatira alsamaawaati waalardi anta waliyii fi addunya waalaakhira tawafanii musliman buu yidhi, aniga oo muslima ii oofso oo i dil. marka walaalayaal markaan is leenahay hal anti muslimatun xaqa, waxaan uga dan leenahay waxa ay tahay waa islaamku ilaahay rabo, islaamka ilaahay uu doonayo ee qofka uu ka aqbalo ayaynu isweydiinaynaa bal inaynu ogaanno miyaynu ku sugannahay mise kuma sugnin. laakiin waa inaad ogaantaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qof muslima unbuu jannada geliyaa, waa qofka islaamnimadiisuna ay dhammayska tiran tahay weeyi. nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacnii, qofka muslimkaa islaamnimadiisa wanaaggeega waxaa ka mid a waxyaabaha aan khusayn ee ilaahay aanu u soo saarin inuu ka tego. nebigeenna moxamedina calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi oo uu inoo sheegay qofka islaamnimadiisu ay dhammayska tiran tahay wuxuu yidhi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadih, qofka muslimka islaamnimadiisu dhammayska tiran tahay waa qofka muslimiintu ay ka badbaadaan gacantiisa iyo carabkiisa. haddaba adiga hal anti muslimatun xaqa, miyaa tahay gabadh muslimada oo dhab a maa tahay oo carabkaaga muslimiintu ma ka badbaadeen? carabkaaga ma ka badbaadeen jaarkaagu? qaraabadaadu carabka ma ka badbaadeen? cidda kuu dhow carabkaaga ma ka badbaadeen? mise carabkaaga waad iska sii daysay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuq u abuuray, aadamaha ilaahay u abuuray ayaad ku sii daysay oo kanaad wax ka sheegaysaa oo tanaad ceebaynaysaa oo tanaad xabanaysaa oo tanaad been ka sheegaysaa. hal anti muslimatun xaqa, ma gabadh muslimadoo dhammaystiran baa tahay? wuxuu rasuulkeennu leeyahay sala allahu calayhi wasalam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadih, qofka muslimka ah ee islaamnimadiisu dhammayska tiran tahay waa qofka muslimiintu ay ka badbaadaan. salima way ka badbaadeen weeyi, maxay ka badbaadeen? min lisaanihi wayadihi, carabkiisa iyo gacantiisaba way ka badbaadeen. sow ma ogid gabadh yahay muslimadii ihi haddaad habeen oo dhan taagan tahay, maalin oo dhan aad sooman tahay, gacantaadu ay furanto oo dadka aad wax tarto, laakiin carabkaaga muslimiinta aad ka ilaalin weydo inaad jahannamo galayso? sow ma ogid nebigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam haweenay habeenkiina markaa kacda oo salaatuleylka u kacda, maalin oo dhanna sooman, laakiin dadku aanay carabkeega ka badbaadin. nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hiya fi nnaar, taasi naar bay galaysaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. mid kalaa loo sheegay oo lagu yidhi habeenkiina ma kacdo, salaadeeda faradka mooyaane tu kalena ma tukato, soonkeeguna ma badna, laakiin carabkeegaa laga badbaado rasuulku jannaday galaysaa buu yidhi. haddaba waxaa loo baahan yahay walaalayaal, marka aad tidhi radiitu billaahi rabban, ilaahay baa rabbinimo raalli uga noqday, wa bilislaami diinan, diintana islaamnimana diin baan raalli ku noqday, in aad muslimadaba noqotaa lagaa rabaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waman yuslim wajhahu ila allaahi wa huwa muxsin, qofka wejigiisa ilaahay u dhiiba oo ilaahay isku dhiiba isagoo weliba muxsina faqad istamsaka bilcurwati alwuthqa, kaasi guntintii adkayd buu ku dhegay, wa ila allaahi caaqibatu lumuur. waxaa la rabaa haddaba gabadhya muslimadii inaad su'aalo badan isweydiisa markaad leedahay amsaynaa wa amsa almulku lilaahi rabbi alcaalamiin. su'aalo badan isweydii. adiga galabnimo waxay galabtu kuugu soo gashay ma adigoo muslimadaba mise waxbaa kaa khaldan? aroortiima waxa ay kuugu soo dilaacday adigoo muslimad ah oo dadkii ilaahay ay ka badbaadeen carabkaaga iyo gacantaada. wakhtigan aynu joogna maanta walaalayaal, waxaad aragtaan inay xumaantii badatay, xumaantii weliba carabka aad u badatay. intaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku imtixaamay ummadda inay u soo baxaan, in internet ay markaasi galaan oo facebook ay galaan oo beriya baaskan maanta dumarkii ku kharibmeen ay dadka ka soo caayayaan ee ceebtooda bannaanka ay ku soo bandhigayaan,
inta ay badatay ee lagu imtixaamay dadkii waxaad moodaa in islaamnimadiiba laga xayuubiyey dadka waxaa ku sii haray uu waxa weeye magacii falaysa lahum min alislaami illa isma islaamnimada magacii uunbaa laga haystaa baad moodaysaa markaad aragta qaabkay u dhaqmayaan inan baa ceebteeda la raadinayaa nin baa ceebtiisa la raadinayaa mid baa wanaag xumaanta ku dhacday ayaa lagu farxayaa musiibada ku dhacday baa farxad laga dhiganayaa ilaahay ha inoo gargaaro subxaanahu wa tacaala walaalayaal dadka muslimiinta ee ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel yahay sifaat bay leeyihiin tilmaamay leeyihiin tilmaamaha haddaad iska weydo muslimadii loo baahnaa ma tihid intay goor tahay godkana aanad gelin waxaa lagaa rabaa inaad muslimad dhaba noqotaa lagaa rabaa gabadha muslimadda waa gabadh xishood badan maanta xishoodkii halku ka marayaa dumarka u fiirsada gabadha muslimadda waa gabadh dhowrsoon waa gabadh cifa leh gabadha muslimadda waa gabadh asturan gabadha muslimadda waxay ku suntan tahay in ay hadalkeega iyo socodkeega intaba islaam ay ka dhigto ay muslim ka dhigto ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisay aaminsan tahay axaadiidta rasuulkay aaminsan tahay sala allahu calayh wasalam ilaahay wuxuu yidhi ina almuslimiina waalmuslimaat waalmu'miniina waalmu'minaat isagoo ka warramaya rag iyo dumarba inay isku mid yihiin macnaha xagga ilaahay iyo cibaadada iyo socodka iyo hor istaagga ilaahay iyo xisaabta intaba waa isku mid weeye ilaahay agtiisana waxaa loogu kala dhow yahay alla ka cabsiga ee jinsiga maaha ilaahay agtii jinsiga raggu kuma fadli badnaa jinsiga haweenkuna kuma fadli badnaa qabiilna laguma kala fadli badnaa waxaa lagu kala fadli badan yahay alla ka cabsi sidaa daraaddeed ayaa ilaahay haween qur'aanka uu ku ammaanay maryamaa ka mida oo aasiya ka mida oo haweenkii ilaahay uu doortay ka mida allahu akbar ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين قبرداسي ونن طاغية إنسان أدونك صامرة كي قال سنابا قبي إلهي سبحانه وتعالى هدنا إيضا جنده قليي إساقنا النار بو ألا قليي سبحانه وتعالى waxaad wax ku tahay waxa weeye taqwadaada iyo alla ka cabsigaaga waxaad wax ku noqonaysaa ilaahay agtii aad qiimo ku yeelanaysaa waa intaad ilaahay ka cabsooto weeye aasiya maxay samaysay odaygayga kumay raacin kufriga iyo gaalnimada ilaahay baa mathal iyo tusaale uga dhigay haweenka muslimaadka iyo dadka mu'miniinta oo dhan dhammaantood wadaraba allahu mathalan mathal iyo mahmah buu ilaahay ka dhigay subxaanahu wa tacaala liladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey buu uga dhigay امرأة فرعون وقبضي فرعون إذ قالت مركي تري أفيرسو رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إلهو أكتاذا واحد يقدس تابيتري جنة أكتاذا إلهو قري يقدس بيتري إلهي بيرهميس سبحانه وتعالى وذيقي بيكو كفر ذي ويكا قالوا ذي وذيقي ويكو أقبلي وذي معاصدوا وذي فسقوا وذي إلهني ماذا باطل كوشي يقري ويكو قلان وذي وحيتري ربي يو ابني لي عندك بيتا في الجنة مركاسا وحيتري ونجني من فرعون وعمله إلهو فرعون يا عمل كيسا يقبت باذي ونجني من القوم الظالمين قلدا الظالمين تانا إلهو يقبت باذي بيتري إلهينا وأو أقبلي والنبي قال محمد عليه الصلاة والسلام مركو كشي كينا يدمر كينا ما يسكترنا آسيو كدري وحهدنا لقو قنانا ذي ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها مريم oo iyadana mathal iyo mahmah looga dhigay dadka mu'miniinta oo dhan waa ibnatu cimraan markaasaa ilaahay muxuu ku ammaanay u fiirso quruxdeedii lama sheegin dherarkeegii lama sheegin qiimo ma laha waxaasi balse waxaa la sheegay inay dhowrsoonayd oy xubinkeegii tarankii ilaalisay xaaraanta ka ilaalisay wa maryam ibnata cimraan allatii axsanat farjaha baa ilaahay yidhi farjigeegii bay ilaalisay allahu akbar fanafakhnaa fiihi min ruuxina وصدقت بكلمات ربها ربي قد كلمات كيسينا وين رميسي ورسله رسول ديسي وين رميسي وصدقت بكلمات ربها ورسله فكانت من القانتين بو إلهي سبحانه وتعالى وحي كمد نقطي كوا قانتين تا إلهي أطيع سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها ورسله فكانت من القانتين
idan walaalayaal waxaa la rabaa in gabadha muslimaddiiha ay muslimad dhaba noqoto oo ilaahay jalla jalaaluhu sidii uu u jeexay ay marto oo hawadeedu kolba siday u qurxiso aanay raacin. waxaa lagu yaqaanaa hablaha muslimaadka inay salaada xafidaan, inay carabkooga xafidaan, inay xubnahooga ilaaliyaan, in wixii ilaahay uu faray inay ateecaan ay ateecaan, inay waalidkood u samafalaan, inay iska ilaaliyaan in aayar lagu arka jidhkooga, inay iska ilaaliyaan inay hadalka u dabciyaan cid ilaahay aanu u banayn inay u dabciyaan. waxaa loo baahan yahay markaa gabadhii ay muslimaddiihi inaad adigu su'aalahan isweydiiso intaanad rabbiga la kulmin. hal anti muslimatun xaqaa, gabadh muslimada oo dhaba ma tahay? ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramay dadka mu'miniinta sifaadka ay leeyihiin fii suurati almu'minuun. allah wuxuu yidhi qad aflaxa almu'minuun, waxaa guulaystay dhab ahaan dadkii mu'miniinta ahaa baa guulaystay. oo waayo aladiina hum fii salaatihim khaashicuun, waa kuwa salaada ay tukanayaan ku khushuuca baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala. haddaanad adigu salaada aad tukanaysa aanad ku khushuucin oo aanay waxba kaa bedelin markaad allah hor istaagto tiraahdo allahu akbar, oo sidii aad ku gashay salaada aad kaga baxdo iyadoo wax alla wax kaa dhaqaaqay jidhkaaga aanay jirin, waxaad dareentana aanay jirin, adigoo allah jalla jalaaluhu hor taagan, waxaad ogaataa inay wax kaasi yihiin, inaanad dhammaystirnayn, sidii loo baahnaana inaanad ahayn. waa inaad isdareentaa marka aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waaladiina hum cani allagwi mucriduun, waa kuwa laqwiga iyo hadalka dhacdhace maalayacniga ee wax faa'iide adduunya tu aakhiro oo ku jirta aanay jirin, waa kuwa ka fogaada ee ka jeesta baa ilaahay subxaanahu wa tacaala. haddaba haddii laqwi kasta oo la hayo aad ag fadhiisato oo catabadaha aad u soo baxdo, gabadhii la rabay muslimadda ahayd ee ilaahay ka baqanaysay ee aakhiro rajaynaysay ma tihid, ee been baad isku maaweelinaysaa, ee isku noqo. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، وقوة الزكاة هي صدقات كالله حبا إلهي سبحانه وتعالى. هداتا هي قبل أن قعنت إذا وحببرين إني وحلب بحضه وحو ألا ودي بي سبحانه وتعالى وكو أمانيستي وددك جار كوغا أن دريمين إيه قاجونيا دحمونيا إيه أردن أن دريمين iyaduna intaasoo nooc cuntada u karsanaysa, intaasoo markaasi maryaha intaasoo nooc u bedelanaysa. haddaad sidaa tahay oo waxaad la baxda aanay jirin, waxaad ogaataa muslimaddii la rabay inaanad ahaynay wax kaasi yihiin, inaad isku noqotana lagaa rabo. waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun, waa kuwa xubnahooga ilaaliya taranka ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fainahum hayru maluumiin. waaladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuun, waa kuwa ammaanaadkooga iyo ballamahooga ilaaliya buu allah yidhi subxaanahu wa tacaala. guntiya gabagabadu waxay tahay idaa kunti muslimatan xaqaa, haddaad gabadh muslimadoo xaqa aad tahay, fastaciddii liliqaa'i illaah, ilaahay la kulankiisa u diyaargarow. intaad adduunka ku nooshahayna hablihii muslimaadka alla yaqaankaa siday ahaayeen waa inaad noqotaa, ilaahay waa inaad xustaa, nebigana aad ku sallidaa, asturnaantaada aad ku dadaashaa, xishoodkaaga aad ku dadaashaa, oo aad garataa adduunyadan inaad marti ku tahay, maalin adduunyadan maalin ka midana in lagaa qaadi doono adiga oo qaawan, sidaad adduunyadaba ku timid adigoo qaawan inaad lagaa qaadi doonona waa inaad soo dhigataa meesha. waxaa loo baahan yahay walaalayaal markaa nabigeenna calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi almuslimu akhulmuslim, qofka muslimkiihi qofka kale muslimkaa walaalkii weeyaan. marba hadduu walaalkii yahay laa yadlimuhu ma gardarraysto, ma dulmiyo, walaa yaxqiruhu ma xaqiro, walaa yakhdulhu ma hoojiyo, garabkiisa kama baxo. wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam man satara musliman satarahu allah, qofka qof muslima astura allah astura isagana. haddaba qofku markuu islaamnimadiisa xaqiijiyo ayuu walaalihiisa muslimiinta jeclaan, gardarrada uu ku hayuu iska ilaalin, xaqiraadda ayuu kala tegi, garabkoogana ka bixi maayee markuu arko iyagoo baahan baahidoodaasi ayuu ku dadaali siduu u dabooli lahaa. wuxuu isku dayi inuu adduunyada ka baxo isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqii uu ku lahaana la yimid, xaqii bani aadamku ay ku lahaayeenna la yimid, oo dadka oo dhanba maalintay dhintaan u ooyaya, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu uu inoo tilmaamay loogu bushaaraynayo inaanu cabsoon ama aanu murugoon. ilaahay dhammaanteena haynaga dhigo muslimiin dhaba, allah haynaga dhigo. markaa su'aashaasi ha noqoto mid
aynu mar walba isweydiino horta ma sidii saxda ahayd baad u socotaa gabar yahay mise waxbaa kaa khaldan sidaad ku tahay jaarka sidaad ku tahay odaygaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu qadaray inaad wada noolaataan sidaad ku tahay rabbiga sidaad ku tahay rasuulkaaga diintaada maxaad u qabataa jaarkaagu diin ma kaa helaan jaarkaagu kaalmo ma kaa helaan jaarkaaga ceebtooda ma asturtaa qof muslima ceebi hadday kaa soo gaadho halkaa ma ku bakhtiisaayoo ma ku daysaa mise waad sii faafisaa sida maanta dhacda maanta waxaad mooddaa in dadka loogu markaa la faray inay ceebaha faafiyaan ilaahay baan ka magan galnay subxaanahu wa tacaala walaalayaal markaa waxay tiraa soomaalidu maanta waa adduunyo barrina waa aakhiro weeyi maanta waxaa badatay heblaayo waa lagu soo booday hebelna waa lagu soo booday ilaahay agtiina waxaad ku badbaadi uun in islaamnimo saxa aad ula hor tagto ilaahayna jannada waa ka xarrimay naf muslimada mooyaane cid kale inay gasho maalin adag baad dambaysa maalin wuquufkeega iyo inta la joogsanayaa ay badan tahay baa dambaysa walaalayaal waxaan ku badbaadaynaa iimaanka inaan xaqiijinno kuwii iimaanka uga xaqiijiya allah inaga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna aqbalo camalkeennana ilaahay subxaanahu wa tacaala haynooga dhiga mid isaga u badhaxtiran hadal waxa ugu wanaagsan kiisa yar wax badan ku tusa waxaan ilaahay ka baryayaa kalimaadka aynu isku sheegnay inuu inagu anfaco cidda ugu horraysa ku intifaacsanaysana iga dhigo idinkana idinka dhigo intaasaan ku soo dayn lahaa maadaama culummo badan iyo akhyaar badan ay noo fadhiyaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.